weyn oo Soomaaliya يحتي في أياك لزعتان ويا خياري ولوحن كجرا waxaan kala socotaan DTV waxa soo xirtay hadda markii lagu daafur lahaa dekada mashruucooda waqti dheer uu soo socday waxa isugu yimid meeshan wasiiradii iyo oo hordhac u ah dawladda badan ayaa hadda halkan ku sugan hadda ayuu xirtay waxaa taagan wasiiradii meesha waxaad la socotaan oo jeedaa waa wasiiradii hordhac waa dawladdii bitirkiisa waan ogaan doonaa inta uu yahay marka hadda ku soo xirtay عياري ولو حنا جالس وقتان DTV مركب طماطم وصباحية سماع عظيم صباحية فرحان هرتوجي سمارة أنا سووا واحتبيني يا وليته وحكوسة جاية سيركي وكان DTV نكا كلا سعيد من نقاني هذا واحد رجع هرب بلدي هرا كارت تاعي DTV بقى لقى داور يعني وهلقى بيروية مركب كي بصوح تي برواقه وحلا جديد يا إن مرت دكتة شمبي جاي يضد أحمر يمرك كده أحمر ما شاء الله بوي ما أدري سلطان ومركب جوال ومركب كنعسي ودكتة قصة السلام عليكم هذه أركان ضد أيها اسمه يمد qaabada ayaa lagu jiraa wasiiradii ayaa iyaguna meesha jooga gudoomiye kan waa la ogol yahay waa DTV marka hadda ayuu ma xirtay boorkii ayaa iyagoo dhammaantood aysan ka maqnayn meesha oo jooga oo ka soo hortay waa DTV halkaas la kala socdaa aad iyo aad baan u salaamaynaa guuliyo gobanimo galaasheena kaliya ka muuqata maanta riyada Axmed Jasiirad waxa ku taqaaneen Axmed Jasiirad kaliya balaad halkaan ka barta mar labaad iyo boorka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد بالله سلامة يا دكان هالكان سيد توسك لايف كي قد بقرية وحن جونا قرعد ما أنت الحمد لله وأودي أرجو يسافر تان كذا في سكيب جوال كاسو مركب كانوا كسو حرتي هذا أنا رجينا إن شاء الله بريه إلى إنه سوت الجلية حفلة دينا أد وما ولي وحن ورثنا بوركي إن كان وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله معله أنا وحن من غينا مانتي أنا نشوفنا مالنتي كويل واتن كبيشة خدنا الله واتن يا الله ay ku beegan tahay xafladii bixi oo bishu tahay 22 bisha tanaad 2022 ilaahay baan waxaan dinaqaynaa maanta waxaan ku soo xirtay markii ugu horeeyay ee ganacsi ee yimaada maraakiib hore waa imaan jireen laakiin waxay ahaayeen maraakiib qalabkooda dekada aad iyo aad baan salaamayna dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo caalamkaba waa mahadsantihiin DTV oo naga qaad kilibkan مسؤول واحد مركب كان معنا سواحر تجنبية بدن حال دتكو روانين وقادان
dekada hadda intee jambi diyaara jambiga uu ku xirtay hadda waa jambigeen hadda wuxuu ku xirtay jambiga B la yiraahdo ama jambiga labaad waxa kale oo diyaarsan jambiga kale u jeedido xagga oo A la yiraahdo ama jambiga koobaad waxa dhiman saddexaad iyo afraad oo iyaguna hadda shaqo ka socoto oo dhawaan inta bisha sanadkaan ay dhamaan doona haddii alla idmo oo iyagana C iyo D la yiraahdo intaasaan uga jawaabaya su'aalihii bulshada halkan ka daawanaysa oo rabta inay boorka hadalkooda dhageystaan oo dalka dibadiisa joogta oo aad ugu faraxsan maanta Garacad oo maraakiibta ku soo xiratay idinka ka boor ahaan riyadan rumowday sidee u aragtaan maxay idinta dhankeen aad wax qiyaas kara maaha Axmed oo su'aashaas weydiisay adoo qaadsan wax la qiyaasi kara maaha runtii adoo waa dareemaysaa bulshadana waa dareemaysaa waa riyadu mowda aad ilaahay wax naqayno iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshaas dacad iyo dawladda ka xasato dadkii maalgashaday intaba aad ma maasan tahay haddana waxaa halkaan isagana taagan Sheekh Xasan oo magacyo badan isku wata boorkana ka mid ah sheekhi waxa weeye dekadana wax walba Sheekh Xasan kusoo dhaw assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadda waa Axmed Muuse ilaahay baa maanta subxaanahu wa tacaala maanta soo gaarsiiyey runtii maalin weyn aan sugaynay weeye maanta kale berri baa xaflad weyn la qabanaya la furaya dekada haddii la yihahdo maantana waa maalin jimcaha oo markabkii ugu horreeyey oo si rasmi ah lagu daafuraya baa taagan waan ku faraxsannahay meesha maanta maraya ilaahay baan ugu mahadinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay guushaas ku soo dhawaada kana faa'iidaysta maraakiibtii hore oo Xasan oo halkan ku soo xiran jiray markan muxuu ka duwan yahay markaan ku duwan yahay kuwa hore waxay ahaayeen maraakiibta adeega dekada wadi laakiin waa mid ganacsi laguna soo beegay furitaanki yani dekada markii ugu horreeyay si official markii loo furo ganacsi weeye markaa dadka ma la wadaagi kartaa mitirkiisa iyo dhererkiisa inta uu yahay mise dib baa ka sheegi doontaa dib baa ka sheegi laakiin meeshan waa ku fadhiyo oo hadda ku xiran yahay B waxa weeyaan 150 mitir weeye hadda meesha uu taagan yahay dabcan waa intaas soo soconaya ama santa مسافر والله ايه مصطفى ايه مصطفى سبحان سبحان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان أحمد موسى جنتلمان سودو ما تدكتي قرع مركب بين عشاء كحرا قال كعيا كتمد أيه سودو ناد ما سنت مركب وعمر أمهات عليا دحتي في ومدالها فرحان فرح صاحبات ما سنت هاي مركب لبعض waxaan maanta ku suganahay Garacad anigu hadda meeshan aan taaganahay waxaan ahay dadkii markii hore ka kulluumaysan jiray oo quusi jiray maanta tan ayadoo waxaan taaganahay dekada dadaal badan ka bacdi waxaan taaganahay markabkii ugu daafuri lahaa oo isugu imaan lahaayeen ummadda oo dhan oo shaqada ay ku bilaami lahayd ayaan maanta taaganahay aad baan ugu faraxsanahay farxadda lama soo koobi karo waxaan aad ugu hambalyeeyaa dhammaan dadka mahadcelinayaa maadaama aad ilaa iyo bilowgii aad ahayd dadkii u gurguurtay inay shaqadan oo waxa waaye waqtigana geliyey aad baa u mahadsantahay aad baa u mahadsantahay Axmed waxaan ku jirnaa sababta ayaan ugu jirnaa dabcan waxaan markaa waraysan doonaa insha Allah khiyaarta kamida waxaynu markaa taas ugu jirnaa Dayax TV oo ah TV-ga laga soo tabiyay badana dekada khiyaar badan baa ku daawanaysa waxaana la jooga Sheekh Fuad oo maanta ka soo qayb galay markabkan iyo dekada furitaankeeda Sheekh Fuad soo dhaw ودوهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مالتي ومال فرحت له runtii waxaa maanta guusheedii la joogaa oo miro dhashay riyadii ahayd dekada Garacad runtii riyadaas oo rag iyo dumar iyo aadana fara badan isugu tagay laga shaqeeyay maskax la geliyay muruq la geliyay maal la geliyay maanta ayaa waxaan taaganahay guusheedii halkan iga dambaysa oo Bertin B ayaa waxa ku xiran markabka Aka Hamburg oo ay leedahay shirkadda barwaaqa cement oo u yeelatay nasiib inay noqoto shirkaddii ugu horeysay oo markabka ganacsi ku soo xirta markii laga reebo maraakiibtii alaabta u keenaysay dekada ee u imaan jiray laakiin markab ganacsi iyadoo berrito oo 22 Oktoobar haddii alla idmo dekada xariga laga jari doono marka koowaad ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaa mahadsan dadkii fakeray waxaa mahadsan dadkii muruqa geliyey waxaa mahadsan dadkii maskaxda geliyey waxaa mahadsan dadkii hantida geliyey waxaa mahadsan cid alla ciddii runtii ka qayb qaadatay maamul iyo shacab intaba
waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa runtii odayaashii hormuudka ka ahaa halkan runtii u soo dhabar adeygay maskaxdooda iyo muruqooda iyo geliyey iyagoo aan wax muqaabila ka qaadanayn waxaan leeyahay iyaga dekedda deegaanka kulliba barwaaqo iyo guul eebbahay idinku bumbuuni waa mahadsantihiin aad waa mahadsan tahay ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين maanta farxad bay noo tahay dhammaanteen dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda geeska Afrika mashruucan maanta inta miradhalkiisa la gaaray waxaan kala soo dhaweynaynaa martida ku cusub oo meesha ku cusub marka insha Allah taala waxaan leenahay guul intaas aan ugu filan